kulankani oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan jaaliyadda magaalada Bilifid iyo dhammaan shacabka ku nool magaaladani ee qaybta ka ah jaaliyadda ka dhisan magaaladani Bilifid ayaa waxa uu ahaa mid ay shacabku ugu dabaaldegayeen maalinta Ciidul Carafada oo markaasi ay dhammaan muslimiinta ay meel waliba oo dunida joogaan u dabaaldegayeen xafladda oo ahayd mid heer sare ah isla markaana shacabkii kasoo qayb galay laga dareemayay wajiyadooda farxad aad u weyn kuna farxasanaayeen maalinta ciida oo ay maanta u dabaaldegayeen mas-uuliyiinta jaaliyadda magaaladani Bilifid isla markaana waxa ay sheegeen in loo baahan yahay isku duubnaan iyo horumar in ay jaaliyaddu ka taliso xilliyada ay jirta jaaliyadana ay hiigsan doonto mustaqbalkeeda dhow in ay gaarto mid ay dhammaan jaaliyadu ku baahdo dalkani Jarmalka gudoomiyaha jaaliyadda Bilifid mudane Xasan oo markaasi goobta ka hadlay ayaa sheegay waxyaabaha jaaliyadda u qabsoomay intii ay jirtay iyo horumarka ay ku tilaabsatay oo uu maanta soo bandhigay in jaaliyaddu ay doonayso in ay markaasi dadka shacabka ah ay si weyn u caawiso waxa weeye waa jaaliyadeeda waxay u timi maanta kow ciidkii Carafo oo aynu faraxno caruurteena la faraxno reeraheena la faraxno inagu aynu faraxno farxad baynu u baahannahay waxa kale oo jira program kale oo ah maxay tahay jaaliyadeeni muddadii aynu soo wadnay ee wada ogtihiin wixii waxa weeye processadii u socday iyo xaaladihii u socday ee maxay tahay xagga dawladda ee aanu ka wadnay inay xaaladihii hadda meel wanaagsan ay mareen oo ay si wanaagsan inoogu guuleysteen oo jaaliyadeena loo aqoonsaday oo aqoonsigii jaaliyadda uu ka yahay ayaa waxa weeye hortaan loo in sheegaya oo ugu wargelinaya dhanka kale intii ay xafladda socotay waxaa abaalmarin quraan akhris ah la guddoonsiiyey ilmaha kuwaas oo goobta ka akhriyay quraanka kariimka oo ay markaasi ku tartamayeen waxaana la guddoonsiiyey abaalmarino ay ku farxaan oo ay markaasi jaaliyadda magaaladani Bilifid ay guddoonsiisay ma aha markii ugu horeysay ee xaflad caynkani oo kale ah ay dhigtaan jaaliyadda magaaladani Bilifid hasaatee midana waxa ay tahay mid ka duwan kuwii hore oo markaasi isku soo beegtay laba farxadood oo ay midu tahay ciidda iyo midda kale oo ah jaaliyadda in la aqoonsaday isla markaana wixii maanta ka bilowda ay jaaliyaddu tahay mid ay dawladda dalkani Jarmalka ka diiwaan gashan qaybna ka ah jaaliyadaha ka dhisan ee la aqoonsan yahay dalkani Jarmalka ee Soomaalida ah Cabduqaadir Xasan Aduuliye magaalada Bilifid TV-ga horyaalka shacabka